والله وفي عمانته دلك هويان ku ciidaya laakiin awal waxaan ku ciidi jiray dalka Carabta alxamdulillah waxaan bogaadinayaa inaan dalkaygu fiican yahay waa Faysa Cabdi oo sanadkan ku ciidaysa dhulkeeda hooyo waxay goobtan dalxiis u soo kaxaysay caruur ay waad u tahay maanta waxaan nimi inaan soo ciidno ciyaalku soo farxaan kulliga soo faraxna alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan deganahay halkan dhow waxaan deganahay boqolka way noo dhowdahay waxaan ku xaysanay inay noo dhowdahay lix baan ku ciidsiinayaa yaryar oo aan dhalay si lamid ah Shankaroon Cabdalla waxay iyana halkan ku ciidsiinaysay tiro caruur ah ما شاء الله ما أنت سفي عم بنعيدنا إن شاء الله سفي عم بنعيدنا ماشان جوجنا الحمد لله مركا الحمد لله رب العالمين ما شاء الله عرور بانكنا سفي عم بيعيدين ويعيارين الحمد لله مركا وحن لها عيد ونكسن الحمد لله ما هذا ديجان كنا ويقولوا ده هاي الحمد لله لكن وحن قدرنا إن ميل الحيس هاي سلاس أدل جدا كوي معنا سلاس أنا أو كعيارين عيال كيانا وكعيدين فرحة يد ما شاء أيا لقدي هني عرورته وحين كعيارين أجابي لوجود ترجع إن يكون مدالان fardo ayaa sidoo kale ku sugnaa goobtan dalxiis oo caruurta lagu barayay farda fuulka waxaana la hadalnay qaar kamid ah caruurta halkan loo keenay damaashaadka bismillaah aniga magaca Yaasir Maxamuud Cabdullaahi Cali intaan ku ciyaarina si fiican u ciideysnayna yaa ku keenay meesha way ku keentay bal ka waran ciidan iyo ciidii hore yaa kula fiicnaa ciidana fiican maxay ku fiican tahay ciidana waxay fiican tahay si wanaagsan ay ciidan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Salmaan Maxamuud Cabdullaahi maanta aad iyo aad ayuu ciidsanaya ciid mubaarak inta waxay kan hooyaday maanta ugu horeysa maalin badan ayaa meeshaan maalin ciidan way maanta way ciidaha kale way maalaan سادات تقيماتك عيالش ماشي متقنا لسنا قحضه يا سلام مساء ابي ولا waalidiinta ayaa caruurtooda u kaxeeya goobaha loo dalxiis tagay caasimadda waqtiyada farxadda si ay maalintooda ugu qaataan waxayna sahay ahaan u qaataan qaarkood raashinka ay cuni lahaayeen inkastoo goobaha qaar aan laga ogolayn in lala tago cunto